si xiriirka guurka uu u sii socdo muddo dheer lamaanuhuna ay ugu noolaadaan nolol wanaagsan waxaa lagama maarmaan ah in labada dhinac ay dareemaan xuquuqda iyo weliba waajibaadka saaran dhinac walba oo ka mid ah labada shaqsi. Warbixintan waxaynu ku eegaynaa 11 talo ay bixinayso haweeneyda dhanka arrimaha qoyska iyo psychology-ga ku takhasustay ee la yiraahdo Sacdiya Al-Qucaydi. Haweeneydani waxay leedahay waajibaadka ninka ragga ah laga rabo ee xaaskiisa ka saaran waxa ugu weyn ayaa ah inuu u qaado jacayl iyo weliba kalgacayl mug leh. Waajibaadka kale ayaana ah kuwo kaloo aad u badan, waxaana ka mid ah ixtiraamka. Waa aasaaska koowaad ee xiriirka guurka. Xiriir kastana ixtiraam la'aan si uu u sii socdo way adag tahay. Tan labaad, gabadhu waxay u baahan tahay inay aragto inuu ninkeedu danaynayo ammaan uu kala duldhaco markay mushkilad gooni ah xalliso. 3, waa inay ammaan dareento. Waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay u baahan tahay gabadhu. Difaaca oo isku day inaad mar walba difaacdo. Markay aragto inaad mar walba difaaceeda u taagan tahay, waxay dareemaysaa ammaan iyo xasillooni. 4, gabadhu waxay bil kasta martaa isbeddello hormoon oo murugo u keeni kara. Arrintaas oo nafsi ahaan u samaysanna markaa culays kale dusha ha ka sii saarin, u jilicsanow una dulqaado. Qodobka 5 ayaa wuxuu leeyahay qadari waxa ay lamaantaada u samaynayso naftaada iyo carruurtaada. Waxaad siisaa yididiilo oo garab istaag mar walba. 6, dhagayso. Gabadha waxay u baahan tahay qof dhagaysta. Waxay jeceshahay wax walba oo ay aragto inay ka sheekayso. Noqo meel aamin ah oo ay soo tiigsato marka ay xaaladdu ku adag tahay amaba xilliga ay murugaysan tahay. 7, haddii xaaskaagu ay shaqaynayso, arrintaasi kama dhigna in lagaa cafiyo qarashaadkeedii. Waa waajib mar walba adiga ku saaran. Markaad waajibkaaga ka soo baxdo, waxay u arkaysaa inaad runtii mudan tahay ixtiraam. Qodobka kale ee 8 ayaa qoraya ka fogow isbarbardhig. Arrimaha ugu xun ee ragga dumarkoodu ay ku sameeyaan waa inay la barbardhigaan dumar kale. Isku day inaad xaqabtirto baahideeda nafsi ahaaneed, caadifada iyo weliba jacayl iyo tanjir ahaaneed ay u baahan tahay. 10, lama filan uga dhig shay ay jeceshahay. Haddii aad si fiican u dhagaysato waxay jeceshahay, waad ogaan kartaa. Waxaad dareemaysaa inay agtaada ka tahay qof muhiim ah. Qodobka ugu dambeeya ee 11 ayaa wuxuu leeyahay ugu dambeyn ha iloobin in xiriirka guurka uu leeyahay khusuusiyaadkiisii u gaarka ahaa. Wax adiga ku wanaagsan ayaan qof kale u wanaagsanayn. Raadi waxa adiga iyo xaaskaaga u wanaagsan. Asalka xiriirka guurka waa jacayl iyo weliba kalgacayl. Haddii dhinac uu ka gaabiyo, raadi wadooyin aad ku hagaajin karto noloshana aad dhadhan fiican ugu yeeli lahayd oo dad badani aanay haysan. Magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho.